قف بقف كو كسر ريو أما كم مقع ديري هاي أي إلهي كدوي من أنت كما طهي مركز إلهي عقلك قادر عليك يعني هو عقل فورا عقل قربه إنه إذا هذا إلهي ما سنين اعتاليه هو حسوين يسحيهين يينا يسحيهين من يجيه إتمينس عقل ما هكاس هو قلبي kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba aad adduunka ka joogtaan iyo waqti walba aad daawanaysaan fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe noo saar sidoo kalena gomleelka fadhiisa ay ku soo gaaraan muuqaalada xiisaha badan ee halkan soo galino muuqaalkan alla saar subhanallah daawadayaal muuqaalkan aad u soo wada jeedeen waa fanaankeenii weynaa ee Maxamed Saciid BK oo yiri qof walba qofku ka magac weeyay ama uu ka caansan yahay ayuu Ilaahay uga dhow yahay subhanallah hadaba Sheekh Mustafa ayaa jawaab kulul siiyay runtii waa wax aad loogu xumaado in qof muslima oo adoon isbadbadhigay Ilaahay diinta islaamkuna ma kala taqaano caanimo iyo caanimo la'aan qof walba Ilaahay wuxuu la hortagayaa intuu adduunyada korkeeda ku noolaa wixii uu amal u shaqaystay ama bashar ha shaqaysto ama fanaan ama khayr ha shaqaystay hadaba Maxamed Saciid BK ayaa hadalkan gafka madu bartiisa Facebook live kaga jiray iri hadaba hadalkan uu fanaanka weyn ee Maxamed Saciid BK yiri ayaa dhamaan gilgalay biraha bulshada iyadoo runtii leeyahay hadalkan uri fanaanka weyn ee Maxamed Saciid BK waa hadal qaldan hadaba daawadayaal runtii waxa soo badanaysa hadalada qaldan ee fanaankan ku baahinayo social media inagoo wadaagsan inuu muddo horena ku qaldamay wadanka Soomaaliya isla markaasina ku yiri hadal gafa walow markii dambe uu raaligelin ka bixiyay markana waxa faraha la galay diinta islaamka subhanallah runtii waa wax aad loogu xumaado in qof muslimi la galo diintiisa macaan ee islaamka faraha dadku Ilaahay way u sameeyeen balse qof walba adduunyada korkeeda intuu ku nool yahay wixii amalka uu shaqaystay